xilka markii abiyi loo dhaariyay 5 maalmood isagoo joogin oo xafiisyadiiba furayaashiisii la wada siinin meesha aradkiile iminka la leeyahay madaxtooyada ayuu xabadii oo socoto Oromiya Soomaali dhaxdooda ayuu jijiga ka dagay madaxweynihii kililka Oromiya intuu ka haystay marka wuxuu u sheegay waxgaradkii iyo dhaqankii iyo culimadii iyo madaxdii iyo maamulkii meesha ka jiray annaga walaalkiina xukuumaddii hore isku keenay dilaysa ya waxaad ka helayseen labanlaabkeed annaga idinayna dad baa isku keendirayay wax xumaato inoo dhaxaysa iyo walaaltinimadeennii hore iyo maamulkeen wixii aynu horumar gaadhayno walaalayaalow nabad baanu idinayna walaalnimaan idinhaynaa la gaadhsiiyey oo la soo kala saxiixay oo ay u sheegteen Itoobiya odayaasha ugu sarsareeyay ay yidhaheen Itoobiya maamulka sare ee federaalka waxba noogama ogolayn ajnabi baan ku ahayn marti baan ku ahayn dalka iyagi wax alla wixii wax qaybsiga dalku leeyahay annaga marti meesha ku xidhan oo waliba la dhibayo baanu ahayn maanta hadii alla inoogu kiin dhiibay amarkii waxaad yeeshay baa inaga dhaxaysa koowde Soomaali markaa madaxda Soomaaliyeed ee wax baratay ee maanta qaarkood aan ka maqlayo habashi colbaanahay Siriya baan cobso ahayn ka kaca dalkeena aan ka difaacno dadku bini aadamkii inuu run sheego oo dadkiisa wax run ah u sheego ilaahayna uu ka yaabo diinta uu haysto waxa ay faraysa uu ku dhaqmo dadkiisa loo xil saaray wixii horumar iyo maaragtay wanaag iyo tatawur gaarsiinaya uu ka shaqeeya ayaa ku wanaagsan waxa maqlaya markasta nin kasta oo ama aqoonyahan sheegaya oo maaragtay dadkan labadan qole ee walaalaha isku diraya wuxuu leeyahay Itoobiya dhul naga boobaysa Itoobiya ku soo duushay Soomaali meel yar oo la kireystay waan ku celceliyay wax kirada sheegi arki maysid laakiin idaacadaha iyo wargeysyada adduunku ama Al-Jazeera haata ama BBC haata ama VOA haata ama German idaacad wargeysyada adduunka oo dhan meesha yar ay Soomaaliland ka kireysatay Itoobiya ay ma ku heshiyeen inay ka kireysato wali lamaba kireynina lagu wada hadlay ayaa dalkeeniba lagu soo duulaya la qaadan dal Soomaaliyeed ka kacayaan dagaal cusub dad aan wali dawladnimadiiba waxaynin arrimahaas baa yaab iyo dhakafaar iyo dhabarjab iyo maaragtay qalbi jab nagu noqotay dadkii Itoobiya ee u hamweynaa gaar ahaan qoomiyadda Oromada ee ku faani jirtay Soomaali waa walaalkano Soomaaliya dadka meeshan jooga sababa Soomaalida joogta 100,000 way gaadhaysaa bal nin midabta koor lagu sameeyay gobolada Oromada haduu tago xageed ka timid maxaad ahayd loo oranaya ya oo xuquuqda dadku u leeyahay wadanka wax zaid ka sharci nin loo sheega mooyee kala xigtaysi iyo maaragtay xigtaysi iyo Soomaaliya ama ka yimaado ama halka ka yimaado arki maysid sharafta ay ku nool yihiin ay ku shaqaystaan ay dadkii kaga quruxsan yihiin iyaga meeshoodaas ay dadkii shaqada doonayay oo dhanba u soo shaqo tago marka yaalleys indhatiran baan leeyahay dadka Oromiya Soomaaliba waxaan kula dardaarmaya xamaasadan iyo colaadan la sameeyay ee la abuuraya dadkii in indhaha la isu galiyo la wado laga fiirsado bismillaah la yiraahdo dadku waa dadkaagi dalku waa dadkaagi qof kasta oo Soomaaliya jooga reerkoodii iyo qoysku ka dhashay halkan uu Itoobiya ku yahay oo uu jooga uu xuquuq ku leeyahay marka Masar hadii aan xageeda u noqono Masar taariikhdeeda waa la yaqaanaa waxaan filayaa 1876 Itoobiya way ku soo duushay ciidan ugu yaraan 50,000 abay soo galisay waqooyigan Itoobiya buura halkaas oo gurra la yiraahiyo wali iyo raaya qowliyaha la yiraahay Oromada ay kililka Axmaarada ku nool waqooyigaas ay timid dagaal wadankan inay qabsatay isku dayday jabkii ka raacay ninkii wax yaqaan taariikhda yaqaan 50,000 wax yar baa ka fiigay baan u malayn oo 2,000 dhannayn halkii bay meydkoodii lagaga tagay
masar boolxoofto iyo maaragtay dilaalnimo ay carabna ku baaburisay afrikada ku dhadhowna ay ku baaburisay dawladihii islaamka oo dhan ku baaburisay oo falastiinta agteeda lagu gumaadayo 1991 dawladdii dhexe ee ka duntay firirkii iyo dhibkii adduunka oo dhan uu og yahay ku soo dhacay oo maanta cagaheeda inay isku soo taagto ay doonayso ayaa Ethiopia looga dhigayaa xamaasad kale oo la doonay in dagaal cusub halkana laga furo shabaabna xilliga dhanka ay ka jirto qabiilooyinka iyo isteedada Soomaalidana inay isku wada dhacaan iyo ugu soo tala gashay maadaama wadanku khayraad badan uu leeyahay Soomaaliya khayraad fara badan oo dhulka ku macdan oo dhulka ugu yaala ku wax soo saara wabiyaal biyayow marka waxaas oo dhan in laga fiirsado oo maaragtay jaarnimada loo eego dhalashada iyo walaaltinimada kala maaran la'aanta xukunka imika maamulkaasi hadduu tago bari ka dambaay meel kale ugu dhow ma jirtay walaalnimada iyo horumarka bad bay yaalaan oo ilaahay baa meel fiican siiyay laakiin badii waxa la doonayaa waxaad adduunka soo gashatay ganacsigaagii wadan weyn oo walaalkooda oo population fara badan loo 120 milyan sanad walba sii kordhaya oo wixii ay keenaan ka iibsanaya ayay weeyaan inay danahooda iyo dantayada iyo walaaltinimada noo dhaxaysa eegaan dhibaatada iyaga gaadha annaga dhibaatay nagu tahay dhibaatadana soo gaadhana inay dhibaatadooda ahaato oo dad isku xidhan oo walaalnimo igaadnimo urur igaado 8 dawlad oo geeska Afrika baan wadaagnaa afrikaannimo wadaagnaa jaarnimo geeska Afrika oo gaar aan wadaagnaa walaalnimo dad iyo dal iyo diin iyo dhaqanba uu naga dhaxeeyo ayaan iyo dhalashaba naga dhaxaysan u nahay